See. Yeah.
يا مختلف يا مسوي كذي يا وبالله توفيق السلام عليكم سد عيد بلو بليا عيد بدا ملتري قرك عيدك بوليس عيدك سلوك أنا وحنا مسألة عيدا كوافرات ما دام الدستور كان عن كهر مريو إيران السورة قالها هلو بحي كوسر قال هاي إيران حيبة إن لقد عيدا كلاك سهران ومسألة مرك هرب oo aan iswagal noqonin ama ha noqdeen qayb booliska ka mid oo aan xeerka ka dayno ha noqdeen waaxda maxaa hoggaan booliska ka mid ah laakiin ciidan afraad ee dastuurka meel ka soo gaagaramayno waxa kaloo aan anigu aaminsanaa in ciidankan ilaalada xeebaha in badan baan cabashada dhageysanay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka hore iyo kuwa waxay aaminsan yihiin wax alla wixii dhibaato ah ee ka haysta xagga xadista kalluunka iyo maraakiibtan inay keentay isku xidhnaanta iyo kala qaybsanaanta ciidanka badda iyo wasaaraddii oo wada isku meel laga xukumayn inta ay qaabkii rasmi oo ay u kala amar qaataan naanu jirin waxay ku doodayaan wasaaradda kalluumaysiga tii hore iyo kuwa ka dambeeyay waxay ku doodayaan nimankan haysta ciidanku iyagaaba doonyaha ka wakiilo oo nagamana amar qaataan intaan wasiirka arrimaha gudaha baryayn markuu doono wuxuu waraga dacwad siimani anigu waxaan aaminsanahay ilaalada xeebaha in horta la yidhaahdo isla markaana la hoosgeeyo wasaaradda kalluumaysiga maadaama ay ilaalinayaan kalluumaysiga sharci darrada iyo wixii kheyraadka ayaan horta anigu aaminsanahay si ay u noqoto shaqadooda ay u qabsaan shaqadii loogu talagalay ama ha lagu celiyo ciidankii qaranka oo hadlaya ciidanka badda ciidanka xoogga qaranka ka tirsan oo ah ciidan caadi aanu ka dhigno amba ilaalada xeebaha ee kalluunka iyo kheyraadka sharci-darrada aynu ku ilaalinayno ha laga dhigo kalluumaysigana ha hoos keenaan waa dhameeyey magacaan ugu halka harta waxaan leeyahay waa ka bedeli lahaa waxaa lagu magacaabi doonaa xeerka ciidanka ilaalada xeebaha ciidankan la samaynayo xeeb oo qura dee waajibaadkiisu maaha waxaan ka dhigi lahaa anigu xeerka ciidanka badda xeerka ciidanka badda qodob kale waxaan anigu laba wasaaradood baa ciidankana ka dhaxeeya wasaaradda waxa weeye line minister buu yahay oo waxaa leeyahay waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaraddan kalluumaysinka iyo xanaanada xoolaha haddeer iyo saddex wasaaradood baabay isku noqdeen haddeere na waxay la yeelanayaan wada shaqayn ciidankii ciidanka Somaliland oo sharcigu ku cadeeyay dastuurkana maaha saddex ciidan farac ka midana lama cadaynin oo uu yahay waxaan leeyahay ciidanka badda waxaan si cad u sheegi lahaa inuu ka mid yahay farac ka mida maadaama wasaaradda arrimaha gudaha loo isgeeyay booliiska waxaa jira dee xeerar caalami ah oo awoodaha badda ay leeyihiin iyo kuwa ciidanka badduba marka isagana waxaan leeyahay waxa aan u leeyahay la waafajiyo xeerarka caalamiga ee badaha waa qodobka saddexaad ujeedada xeerkan waa in la dhiso nidaam ciidan badeed baan halkaa ku darayaa nidaam ciidan badeed oo la isku halayn karo nidaam ciidan badeed
oo la isku halayn karo oo xaqiijinaya in si waafaqsan shuruucda dalka aan kana hor imanaynin shuruucda badaha iyo ammaanka xadbadeedka iyo badweynta caalamiga marka halkaan waxaan ku dari lahaa nidaam ciidan ka badda ciidan badeed isagana halkaasaan ku dari lahaa astaanta ciidanka badda anigay qoran halkaa waa aasaasidda waa qodobka qaybta labaad aasaaska ciidanka badda ujeeddada loo aasaasay xeerkana waxaa lagu aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland baa ku yaal halkan waxaa leeyahay xeerkan waxaa loo aasaasay ciidanka badda taana waxaa leeyahay waa in wasaaradii ay leen ministerka wahaayeen iyo wasaaradda kale ay shaqadu isu keenteen labadaasba ay la wadaajiyaan inay shaqayn leeyihiin qaab dhismeedka waa cutubka afraad qaab dhismeedka ciidanka badda qaab dhismeedka ciidanku wuxuu la mid yahay uu la mid noqonayaa qaab dhismeedka ciidamada kale waxa uu ka gaara doorka ay ku leeyihiin badda laakiin xagga dhismaha waa taliyaha iyo taliye ku-xigeen iyo hoggaamada ciidamada iyo waaxaha عليه waxa ay kala mid noqonayaan ciidamada kale qaranka dhaartaas iyadoo waxa weeye dhaarta qaranka ciidanka qaranka lagu dhaariyo waxa lagu dhaarinayaa iyadana ayaan taana ku dhaafaya miisaaniyadda iyo maamulka xisaabaadka ilaalada xeebaha taasoo waxay la mid noqonaysaa ciidamada kale ayaan iyadana ka dhigay biladaha iyo abaalmarinta dhammaan hanti dhowrka hantida iyo agabka ciidanka ilaalada waxaas oo dhan waxa aan iyagana sida kuwa hore oo kale inay kala mid noqdaan kuwa ciidamada ayaa iyagana soo jeedinaya inay noqdaan waayo qodobka sagaalaad waxa weeye qodobada kala dambaysta xeeroosaadyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa leh ansixinta xeeroosadyada lagama maarmaanka ah ee dhaqangelinta xeerka xeer hoosaad wasiirka arrimaha gudaha ayaa leh ansixinta xeer hoosaadyada lagama maarmaanka ah dhaqangelinta xeerka xeer nidaamiyan halkaan uu ka dhigay halkaa xeer hoosaadka laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha ayaa iskale ansixinta xeer nidaamiyayaasha lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta xeerkan waa qodobada kala dambayska وبالله التوفيق انتصار السوق كالويسكا سياسة المحلوة